madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wareegta u soo saaray uga magacaabay Cabdixakiim Xasan Ashkar inuu noqdo danjiraha cusub ee Soomaaliya u qaabilsan dalka Sacuudi Arabiya. Danjiraha cusub ee Ashkar ayaa wuxuu ahaa wasiir dowlaha wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda Soomaaliya. sidoo kale wareegtada madaxweyne Farmaajo u soo saaray ayaa loogu yeeray safiirada dalalka Masar iyo Suudaan inay si degdeg ah ku yimaadaan dalka muddo toddobaad gudihiisa. agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa sharaxaya wareegtada uu soo saaray madaxweyne Farmaajo in maanta oo taariikhdu ku beegan tahay 29 bisha Maajo 2019 in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu u magacaabay mudane Cabdixakiim Xasan Ashkar inuu noqdo danjiraha Soomaaliya ee boqortooyada Sacuudi Arabiya. sidoo kale waxaa loo yeeray oo dalka laga doonayaa inay muddo usbuuca ku soo galaan danjirayaasha dowladda federaalka Soomaaliya u matala dalalka Suudaan iyo Jamhuuriyadda Carabeed ee Masar. geesta kale madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafd balaaran uu hogaaminayo ayaa u ambabaxay maanta dalka Sacuudiga kadib markii casuumaad uu ka helay boqorka dalkaasi kaasi oo ku aadan ka qaybgalka shirka OIC oo ka furmiya magaalada Maka. shirka ayaa looga hadlay doonaa duqeymihii loo geystay maraakiibta uu leeyahay dalka Sacuudi Arabiya. waa kan Cabdinuur oo markale arrimahan ka hadlaya. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa ka ambabaxay garoonka Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho. madaxweynaha iyo wafdigiisa waxay ku sii jeedaan magaalada Maka al-Mukarrama halkaas oo uu ka bilaaban doono shirka ururka Islaamka oo dhammaan dalalka ururka ku bahobay isugu imaanayaan. waxa madaxweynaha halka ugu horeeyay wasiirka arrimaha dibadda iyo wafdi uu hogaaminayo kuwaas oo gogol xaar u ahaa wafdiga madaxweynaha. safaaradda Soomaaliya ee Sacuudiga ayaa safiir la'aan ahayd muddo ku dhow sanad kadib markii safiirkii Sacuudiga Daahir Maxamuud Geele 12 bil ka hor loo magacaabay wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya inkastoo 1 bishan oo iska casilay xilkaasi.